ويلكم هذا تلقوب لو كلا waxa kala taleeqoob ciidamada oo magaalada caawa roonday amnigu waa kasweyn yahay qarankooda oo shaqeeyeen dhaqdhaqaaqyo sidoo kale howlgallo ayay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee deegaanka Saakay ilaa ay xalay waxay ka wadaan deegaanka Masaajid Cali Guduud halkaas oo shalay weerar ay ku qabsadeen daqiiqado kooban ee al-shabaab ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa deegaanka ayaa mar kale gacanta dib ugu dhigay iyadoo saraakiisha ciidamada hogaaminaysay ay muujiyeen dhaqdhaqaaqyo sidoo kale howlgallo in halkaas ay ka sameynayaan saraakiil u hadashay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay gacan ku haynta deegaanka Masaajid Cali Guduud oo al-shabaab laga qabsaday 2 sano ka hor marka la eego deegaankan oo muhiim u ah sida dadku iyagu ay aaminsan yihiin al-shabaab isla markaana saraakiil badan oo dawladdu iyadu ay sheegtay sababaha ugu badan ay u soo noqonaysa al-shabaab inay u tahay meel istiraatiiji ah ayaa ciidamada dawladda saraakiisha hogaaminaysa waxay xaqiijin in marna aysan suuragal noqon karin in al-shabaab halkaas ay ku sii nagaadaan xaafadaha kala duwan ee magaalada ayaa Saakay waxa guud ahaanba ka soconaya dhaqdhaqaaqyo sidoo kale howlgallo ay sameynayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa deegaanka xaaladda deegaanka ayaa xalay ilaa iyo Saakay ah mid degan iyadoo wax dhibaato halkaas hadda aysan ka jirin saraakiisha ciidamada dawladda ayaa iyagu waxay xaqiijiyeen in guud ahaanba gacanta deegaanka iyo sidoo kale meelaha ku dhowdhowba hadda si guud gacanta ay ugu hayaan ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka goobaha ganacsiga ayaa si caadi ah ku soo laabtay Saakay waxaana dadka si caadi ah uga shaqeysanayaan suuqyada kala duwan ee ku yaala deegaanka ma jiro wax amni darro halkaas ka jira sida saraakiishu iyagu xaqiijiyeen waxaana ciidamada saraakiisha hogaaminaysa iyagu ay xaqiijiyeen in guud ahaanba la wadi doono howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka ee laga sameynayo gudaha deegaanka Masaajid Cali Guduud iyo sidoo kale meelaha kale ee ku dhowdhow dawladda federaalka Soomaaliya labadii toddobaad ee u dambeeyay waxay kordhinaysay duqeynta iyo sidoo kale howlgallada lagula dagaalamayo al-shabaab waxaana ilaa ay hadda dawladda federaalka Soomaaliya xaqiijisay in guud ahaanba qorshaheeda uu yahay in gacanta ay ku dhigto gobolka Shabeellaha Dhexe oo ah halka hadda ugu badan oo ay isku aruursanayaan al-shabaab madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan furmo hore ee dagaalka ayaa isagu waxa uu xaqiijiyay in guud ahaanba laga adkaan doono al-shabaab isla markaana aysan suuragal noqon doonin inay isdhiibaan madaxweynaha ayaa tilmaamay isla markaana digniin u diray dadka shacabka ee ku sugan meelaha al-shabaab iyagu ay ku nool yihiin isagoo tilmaamay in dhawaan ay ka bilaabi doonaan duqeymo dhanka cirka oo lala beegsanayo fariisamayaasha al-shabaab halkaas ay ku leeyihiin si dadka aysan waxyeello u gaarin dawladda Soomaaliya waxay xaqiijisay in guud ahaanba dadka halkaas ay isaga barakacaan ama ay ka guuraan